hay-adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salale marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Asarda ayaa maanta baaq ay soo saartay waxa ay kaga dalbatay dadka qurba joog ah wajigii labaad ee wadadaasi la sameyn lahaa in ay markaasi kaalintooda kaga qaataan gudoomiyaha hay-addaasi Xasan Cali Cusmaan oo isagu markaasi shir jaraa'id oo gaar ah arrintaas u qabtay oo ka hadlayay ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyay oo uu ka hadlay waxaan lahaa inaan madaxweynaha u dhalatay gobolada Awdal iyo Salale u sheegno in mashruucii ay hay-adda Asarda gacanta ku haysay lahaa jidka isku xidhay Dila Boorama wejigiisii hore u dhammaaday wejigii labaadna tawaabushihiisii hadda gabagabo ku dhow yahay horena inuu bilownaan jeclay haddii ilaahay na gaarsiiyo wejiga labaad oo ka bilaabmi doona haddii ilaahay halkii tii hore ku joogtay kuna dhowaan doona magaalada Goreegaco haddii ilaahay na gaarsiiyo dhinaca kalena waxaa ka socda barnaamij ay dowladdu bixisay oo 4 kilomitir oo kasoo bilaabmaya Dila u soo gaaraya Tulli marka hawshaasi saas ayay u socotaa annagu haddana Asardaan nahay waxaan walaalaha iyaga gudaha iyo dibadda ku nool iyo dadka kale ee Soomaaliya jaarkaan nahay sidoo kale halkaasi waxaa ka hadashay Basre Jirde oo iyaduna markaasi ku hadlaysay magaca dumarka isla markaasina kamid ah dadka qurba joogga ah ee iyadu markaasi wadanka dib ugu soo laabtay haddana ku hawlan hawlaha horumarinta marka hore waxaan ku bilaabayaa hadalkayga waxay soo gaaray fariin ah dumarkii London ee u dhashay Awdal iyo Salale in ay maanta ay bishu 4 tahay oo Sabtiya ay London shir ku leeyihiin oo ay fadhiisanayaan ayagoo u fadhiisanaya Asarda darteed sidii ay jidka wixii ay ururiyeen ugu soo diri lahaayeen ay horumarka wadankooda uga qayb gali lahaayeen warkaas ayaana soo gaaray xalay sidaa darteed ayaanu anaguna jecelnahay intaanay weli xoolahoodiiba imikana waxaan bilownay 4 kilomitir oo sufaygeedii la dhammaynayo lana bilaabi doono insha Allahu tacaala intaasi Asarda ayay u gaartay 7 kilomitir dowladda cusubna waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waxay soo bilowday iyaduna 4 kilomitir oo ay ka soo bilowday Dila ilaa Tulli siduu sheegay gudoomiyaha Asarda marka iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran gacantana way ku hayaan marka 7 kilomitir iyo 4 laga reebay inta u dhaxaysa 28 kilomitir bay ahayd waxaan u malaynayaa ceelo uma qadna cidina uma maqna bay tiraa Soomaalidu waxa laga sugayaa kaliya waxa weeyaan gaar ahaan jaaliyada u dhalatay wadanka rag iyo dumarba Awdal iyo Salale iyo intii kale ee khayr jecel kale Abubakar Xuseen Shiine oo Abubakar Dheere loo yaqaano ayaa isaguna ka hadlay halkaasi oo tibaaxay isla markaasina dadka ku booriyay in ay kaalin reer London ama reer Soomaaliland joogtay dadka reer Soomaaliland joogay aad u badan reer Soomaaliland badnaa war Soomaaliland baa wax ka doonayna qolo wax ku doonayo marka waxaan ka doonaynaa ilaa 20 kilomitir isku xukumaan oo u dhaxaysa Dila iyo Boorama Jabuuti oo niraano jinta Soomaaliland ka reer London dadka ay magaalada diaspora ayaa dhistay kii kilomitir dhistay magaciisa lagu qoray kii 20 mitir dhistay $10 $20 ee jaadka isku qaadaysaan ayaa kilomitir dhisaya wadhay haddaad ka sootaan la dhawaa wajaalay isla waa wajaalay jaadka ku badan baa leeyahay maalin waxaan doonayaa inaad jaadka ka sootaan oo jidka contribution sidoo kale halkaasi ka hadlay Ismaaciil Riiraash oo ah maamulaha shirkadda Dahabshiil isagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shirkadda Dahabshiil qaybta lixaad kale ee ay ka qaadatay iyada oo 1 kilomitir lacagteedii hadda ku deeqday taasina hawsheedii markaasi wajigan labaad bilowgeeda ay tahay waxaan hadda runtii u jeedinayaa sharafna runtii ah shirkadda Dahabshiil oo runtii maxaan ku xaweeyay 1 kilomitir qiimo dhan aan ku bixisay oo lacag $80,000 وبحيث اسمها جدك تبابشيسا أيا كا هاو قمن اسميسا مركا تبابشيسا أيا نحن كشرنا هذه بعد ما هتسنتين وحنا دمنا يقعنتينه بدنا سوق قاعدها نغطى بعد ما هتسنتين فهمتي دمركا غير عندنا نحن كل حدوني يعني نحن كل حول شركة دهبشيل الصومالي نحن كل وحي contribution يجنا هذه بنوصل ويننا وعنا إن شاء الله تعالى وحي تورط إلى waxay ka dhawaajiyeen 4 kilomitir ee ay xukuumaddu bilowday dhismaheeda xagga Dila ka soo bilowday iyo markaasi 4 kilomitir iyagu hadda ay bilaabayaan in dhul aad u fara badan oo markaasi u dhaxeeyay uu jiro loona baahan yahay qof kasta in uu kaalintiisa qaato oo uu u soo diyaar garoobo Xasan Ciise shabakada wararka Salale News Boorama